buugga Istanbul Unitka koowaad cashirkiisa koowaad waa Merhaba. Merhaba waa haye ama hello, salaanta hello, hi la isdhahayo af Turkiga Merhaba ayay u taagan tahay. Marxaban. Soomaalida si kale way u isticmaalaan laakiin Turkida dhawaqa Merhaba waxa ay u taagan tahay salaanta ugu horeysa oo qofka aad dhahayso assalaamu calaykumta iyo iska waranta kasii horeysa aad dhihi karto. Marka waa kasii gudbayaa meeshani tanishma. Tanishma waa isbarasho. Salaamlashma waa isa salaamid. Dileklar waxyaabaha la isu rajeynayo oo la isleeyahay kheyr kusoo waabariso labada kuu rajeynaya iyo la mid ah. Dilek waa qofka waxyaabaha u rajeynayso. Merhaba waa soo aragnay hello ayay u taagneyd. Gunaydin subax wanaagsan ayaa laga wadaa. Nasılsın sidee tahay. İyiyim waan fiicanahay. Nerelisin xagee ka soo jeedaa ayaa laga wadaa. Hoşça kal waa bye bye camal ayay u taagan tahay ama macsalaama. Güle güle iyadana la mid ah. Memnun oldum. Memnun oldum waa barasho wanaagsan. Waa hordhaca mataqaanaa cashirka erayadii nagaga soo horbixi lahaa cashirka gudihiisa ayaa unitka xaggiisa sare sida note ahaana loo soo hordhigay iyo wada sheekaysi kooban ayaa laga sameeyey. Buuggani buuggii hore usoo aragnay wuu ka duwan yahay. Midda kale marka sharaxaadda iyo ereyga aan boobsiinayna qalad u fahmin adigoo heer beginnery ah maadaama recordingka uu noo socdo aad dib u dhageysanaysaan ku celceshigiina adiga muhiimada idin tahay in intee la ego aan boobsinaa oo cashir badan uu recordingka noo galaana way inoo fiican tahay. Marka qalad u fahmina boobsiiskan aan ku wada. Gule gule oo sadarka saddexaad ah waa bye bye ayay u dhigan tahay. Gule gule macsalaama bye bye iyada iyo hoşça kalti wax yar ka hor aan soo qaadanay baa isku mid ah. Qofka markii ay sii macsalaamaynaysaan oo kala tagaysaan isticmaalaysaan. Memnun oldum waa barasho wanaagsan. Teşekkür ederim waa mahadsanid. Geeskeeda wada sheekaysi gaabana laga sameeyey. Senin adın ne? Adigu magacaa. What's your name ayay u taagan tahay. Ma ismak camal carabi. Senin adın ne? Adigu magacaa. Benim adım Ayumu. Magacaygu waa Ayumu. Benim adım magacaygu waa Ayumu. Nasılsın sidee tahay. Teşekkür ederim mahadsanid. İyiyim waan fiicanahay. Nerelisin xagee ka soo jeedaa. Dal ahaan iyo magaalo ahaan labadaba waa loo isticmaali karaa. Where are you from? I am from Somalia waa dhihi kartaa. I am from Galkacyona waa dhihi kartaa. Sida kuu fudud. Japonyaliyim waddankan Japan ayaan ka soo jeedaa. Japanese ayaan ahay. Japan ayaan ka soo jeedaa. Memnun oldum. Memnun oldum waa barasho wanaagsan oo waa ku qanacsanahay isbarashadeena. Barashadeena waa ku faraxsanahay. Bende memnun oldum anna sidoo kale waan la dhacay isbarashadeena oo ku qanacsanahay. Barashadaada sharaf ay ii tahay camal. Memnun waa qanaacad mabsuud camal ay carabiga u taagan tahay. Barashadaada waa ku faraxsanahay. Hoşça kal waa hadaatiyaan soo aragnay waa macsalaama. Bye bye ayuu ku dhahay. Gule gule. Marka intaa waxay ahayd hordhici cashirka. Hazırlık çalışması ayaa meeshan inoogu qoran. U diyaargarowga cashirka. Sawir walba iyo qof walba xarakaadka uu sameynayo. Meeshan laba qof oo iska canqaadaysa taagan. Gacmahooda inoo muuqda. Xogaha screenka asxaabta hoos ugu qaad.
Marhaba, hello ama laba qof oo isdhehayso is salaamaysa. Gunaydin waa good morning. Gunaydin waa subax wanaagsan. İyi günler, maalin wanaagsan. Hoş geldin. Gabadhan afraad, hoş geldin waxa ay leedahay soo dhawow, welcome. Qof guriga aad ka furtay iridka waxyaabihii aad dhihi lahayd ay ka mid tahay, iyo qof magaalo ka imaada, qof safar ka imaada. Soo dhawow. Hoş geldin. Soo dhawow. İyi akşamlar. İyi akşamlar waa fiidnimo wanaagsan. Hoşça kal. Qof sii safraya meeshan bye bye baa la leeyahay, macasalaama. Asna waa kugu dhihi karaa, adna waa ku dhihi kartaa. Hoşça kal inuu qofku ku dhaho adiga gule gule. Bye bye sidaa waa u dhihi kartaa. Casharada kale aan ku arki doonaa iyadana görüşürüzna waa la isticmaalaa oo is arag dambe oo xiiso leh. Görüşmek üzere iyadana way jirtaa. Marka cashirka koowaad waa cashir akhrin ah. Ukuma waa cashir akhrin ah, reading. Casharada iyada waxay u kala bixi doonaa cashir akhris ah, cashir dhegeysi ah, iyo cashir practice u baahan. Cashirkani waa cashir mataqaanaa akhris ah. Ukumaak. Mawduuciisa waa tanishma. Tanishma waa isbarasho. Meeshan waxaa ku sheekaysanaya 4 xiwaar baa inoo yaala, 4 wada sheekaysi, 4 conversation. Midka koowaad Cali iyo Muraad baa ku wada hadlaya. Ali, merhaba, benim adım Ali, senin adınız ne? Senin adın ne? Ali wuxuu leeyahay merhaba, hello, benim adım Ali, magacaygu waa Cali, senin adın ne? Adigu magacaa? Muraadna wuxuu leeyahay benim adım Muraad, magacaygu waa Muraad. Cali waxa uu leeyahay memnun oldum, barasho wanaagsan. Muraad waxa uu ku dhahay uu ugu jawaab celiyey ben de memnun oldum, anna sidoo kale barasho la mid ah ayaan ku leeyahay, wanaagsan oo wacan. Wada sheekaysiga labaad, laba gabdhood aa ku sheekaysanaya. Dileeg gabar la yiraahdo iyo gabar Zaynab la yiraahdo. Dileeg, salaam Zaynab, waa laba ruux horey isu yaqaanay. Markii ay hellow dhahaysay magaceeda u sii raacday. Zaynabay haye, hellow Zaynab. Nasalsan sidee tahay? Zaynab waxa ay tiri waan fiicnahay. Tashakkur ederim, mahadsanid. Sen nasalsan, adigana iska waran sidee tahay? Sen nasalsan, adigana sidee tahay? Dileeg waxa ay ugu jawaab celisay tashakkular, mahadsanid. Ben de iyiyim. Tashakkur ederim waa la dhihi karaa mahadsanid markii la leeyahay. Tashakkular waa la dhihi karaa. Siyaabo badanaa loo dhahaa. Wallah dadaa u isticmaalaa. Dadaa Saul ku dhahay. Marka intaba casharada sida luqadiina ay u soo hormarayso maalin ka dambeysa ayaa casharadana loogu soo biiri doonaa. Waa idin hordhacay, meesha nooguma qorna. Meeshan waxaa ku sheekaysanaya laba qof oo ajaanib ah oo Turki aan ahayn, Hana iyo Austin. Hana waxay leedahay Nerelisin, xagee ka soo jeedaa? Austin waxa uu leeyahay Nigeria, dalka Nigeria ayaan ka soo jeedaa. Nigeria, sen nerelisin, adigu xagee ka soo jeedaa? Hana waxay leedahay ben Almanya, anigu waxaan ka soo jeedaa dalkan Germany. Almaan, carabtana way dhahdaa, turkidana way dhahdaa. Almanya, German ayaa ka soo jeedaa. Meeshan waxaa ku sheekaysanaya wada sheekaysiga afraad, arday magaciisa John la yiraahdo iyo macallimadii. Günaydin öğretmenim, nasılsınız? John waxa uu leeyahay subax wanaagsan macallimadayii. Nasılsınız, sidee tihiin? Macallimadayii oo sidee tihiin? Subax wanaagsan ayuu u raaciyey.
subax wanaagsan macalimaday, nasalsana sidee tihiin? Orodmaan macalimaddu waxa ay ku jawaabtay, Gunaydin Jaan. Jaanow, subax la mid ah. Gunaydin unbaa la isleeyahay af Turkiga. Ma ahan sida Carabiga camal oo sabax alkhayr, sabax nuur la isdhahayo. Jumladu waxay iska beddelaysaa meeshaan. Sida marhaba loogu jawaabay, Gunaydin unbaa loogu jawaabaa. Qofka magacii waa u raaci kartaa waana ka dayi kartaa. Waan fiicanahay. Sen nasalsan. Adigu sidee tahay? Teşekkür ederim. Mahadsanid. Ben de iyiyim. Ana sidoo kale waa fiicanahay. Wada sheekaysiga afraad shanaad boga sagaalaad hoos inoo durki. Meeshan waxaa ku wada hadlay Binar Hanum iyo Levant Bey. Mrs. Binar iyo Master Levant. Meeshan waxaa ku aragtaan si fiican u eega Binar Hanum iyo Levant Bey ayaa isku wareysanaya. Hanum waa qofta dumarka ayaa loo raaciyaa. Marwa Binar qofka kalena qof shirkad maamulka ah iyo madax iyo maadaama uu yahay mudane iyo marwo ayay isku salaamayaan markay isleeyihiin ama iska qaadayaan. Binar Hanum, Marwa Binar, nasalsanas Levant Bey. Mudane Levant sidee tihiin bay ku leedahay. Nasalsan haddaati waxaan ku soo arkaynay oo ah sidee tahay qof caadi oo iska asxaabta ah markii aad leedahay hal qof asigoo ah baa hal qof dhahaysa sidee tahay. Laakiin meeshan iyadoo laba qof kaliya iswareysanaysaa waxaan ku arkaynaa jumlo dad badan sidee tihiin lagu dhihi karo in hal qof kaliya loo isticmaalo oo la leeyahay sidee tahay hal qof kaliya. Sidee tihiin hal qof kaliya lagu leeyahay. Nasalsanas Levant Bey si xurmad leh ayay waxay leedahay asoo hal qof ah. Nasalsanas Levant Bey. Mudane Levantow sidee tihiin. Levant Bey ayaa wuxuu ku jawaabaya Mudane Levant, Teşekkür ederim. Mahadsanid. Waan fiicanahay. Siz nasalsanas. Sen nasalsan wuu dhihi kara laakiin wuxuu ka doorbiday inuu dhahay iyadoo hal qof ah. Adinkuna sidee tihiin. Iyadoo hal qof ayaa wuxuu leeyahay inay dad badan yihiin camal. Iyada iyo garaadaha ay sidada iyada iyo maqaamka ay ku joogta ayuu la jamcinayaa si xurmad leh. Ereygan waxaa u isticmaali kartaa macallinkaaga, qof aa xurmayso, waalidkaaga, aabaha, hooyada, walaalkaa kaa weyn iyo dad madaxda dowladda iyo qof aa ixtiraam u hayso. Siz nasalsanas. Adinku sidee tihiin. Adigu sidee tahay. Binar Hanum. Mrs. Binar ayaa waxay ku jawaabay Teşekkürler. Mahadsanid. Ben de iyiyim. Ana sidoo kale waan fiicanahay. Wada sheekaysiga geeska laba gabdhooda ku wada hadlaya meesha Oznur iyo Sinam. Gabar Oznur la yiraahdo ama qof dumar ah Oznur la yiraahdo iyo gabar kale iyadana Sinam la yiraahdo. Ne haber Sinam. Ne haber waxaa loo isticmaalaa maxaa war oo jiro maxaa cusub camal markii aad leedahay. Ne haber Sinam. Sinamey maxaa cusub. Ilig fiicnaan sandaan ne haber. Jawigu waa caadi markii aad leedahay. Waan fiicanaha ku soo barnay. Hadda ilig fiicnaan ladnaan camal baa jirta markii uu qofka leeyahay. Sandaan ne haber. Adna bal iska waran. Sandaan ne haber. Oznur waxa ay ku jawaabaysaa Saul. Mahadsanid ayay ka dhigan tahay. Waa jumlooyinka haddaad idiin sii hordhacay. Bandanda ilig. Ana fiicnaan iyo ladnaan unbaa iga cusub. Iga war ah. Nihan iyo Mate ayaa ku sheekaysanaya wada sheekaysigan qaybtan ka muuqda kan hoose. Nihan never ne yok.
Mete. Gabadha Nihan la yiraahdo, wiil Mete la yiraahdo ayay waxay leedahay never New York. Var iyo York waan baran doonaa cashiraanta horteena. Var shaygan wuu yaalaa markii aan leedahay ayuu dhigaya. Yorkna shaygan ma yaalo ama wax jira ma ahan. Wax xaqiiqa aanan jirin markii aad jumlada ku dhisaysa ayaa iyadana ku dhex daraysaa. Never New York Mete. Wiilka Mete la yiraahdo ayay waxay ku leedahay maxaa jira maxaase maqan. Xaaladaada ka sheekay macnaa maxaa kugu ziyaada maxaa naaqusa markii ay leedahay ayay waxay ku leedahay never New York. Mete waxa uu ku jawaabaa ishtee waa sidaa aragta fanaadiil not bad wax xun ma jiro waa sidaa ogeyd fanaadiil deal waa not ayay u taagan tahay fanaadiil not bad ma xuma xaaladaydu waa iska okay sidaa ogeyd Sunday never New York adna maxaa ka cusub oo ziyaado kuga maxaase naaqus kuga ilig saalig fiyowi iyo caafimaad unbay leedahay fiyowi iyo caafimaad intaan jumlooyinka way kala duwan yihiin dabcan si luqadda u xarakayso mar walba midka aad ku xarako isleedahay ayaa isticmaalaysa wada sheekaysigan qaybtan inoogu dambeeya Aysel gabar la yiraahdo iyo Layla ayaa meeshan ku wada hadlaya hoshaka Layla isma dhaafno hoshakal nabad ku soo joog Layla ayay leedahay Laylana waxay ku jawaabtay gule bye bye ciao camal ayay u taagan tahay sonra görüşürüz dib baynu isu arki doonaa sonra görüşürüz see you again see you later ayay u taagan tahay dib baan isu arki doonaa görüşürüz waynu is arki doonaa Aysel markii ugu dambeysay waxay leedahay görüşürüz bye bye isma dhaafno meeshan iyadana waxaa ku wada hadlaya macallin macallimad iyo wiil öğretmen macallinka waxa uu leeyahay macallimaddu waxa ay leedahay merhaba senin adın ne hello adigu magacaa ardaygeedoo ku cusub galaaska ama sanadka cusub waqtiga macallimiinta iyo ardada isbaranaya ayay waxay ku leedahay senin adın ne adigu magacaa Martin waxa uu leeyahay merhaba benim adım Martin magacaygu waa Martin sizin adınız ne adinku magaciin iyadu sida aad dareemaysaan adigu magacaa bay tiri markii uu u jawaab celinayay magacaygu waa Martin buu dhahay anigu Martin baa la dhahaa macallimadayay si xushmad leh ayuu wuxuu leeyahay sizin adınız ne adinku magaciin iyadu hal qof ayuu ku leeyahay u fiirsada öğretmen benim adım Filiz magacaygu waa Filiz ayay leedahay magacaygu Filiz ayaa la dhahaa memnun oldum barasho wanaagsan ben de memnun oldum anna sidoo kale barashadaada waa ku faraxsanahay barasho wanaagsan oo wacan öğretmen macallimadda ayaa waxay leedahay nasılsın sidee tahay Martin waxa uu ku jawaabayaa teşekkür ederim mahadsanid iyiyim waan fiicanahay siz nasılsın adinku sidee tihiin teşekkürler mahadsanid ben de iyiyim anna waan fiicnahay nerelisin ayaa macallimadda weydiinaysaa Martin oo xagee ka soo jeedaa Martin waxa uu ku jawaabaa Isbaaniyoliyim dalkan Spain ayaan ka soo jeedaa Spanish ayaan ahay Spain ayaan ka soo jeedaa öğretmen hoş geldin soo dhawow ayay leedahay hoş bulduk waan dhowahay ayuu ku dhahay macallimadda sida casharka lagu jelayo waa iyadoo Turkiyada
dalkeeday joogtaa. Arday dalka dibaddiisa uga imaada waxbarasho ayaa dalkeeda jooga. Sidaas darteeda ayay soo dhawow u dhihi kartaa, iyo galaaska maalinkaas uu ku cusub yahay ayay u dhihi kartaa. Labadaba waxay u taagan yihiin soo dhawow iyo waan dhowaa. Hoş geldin, hoş bulduk. Hoş geldin ayaa qofka ku horeynaya, hoş bulduk ayuu ku jawaab celinayaa. Marka inta ka dambayso boggan harsan, adigaa ku fegaaraya. Mid waa isku aadaadin jumlo iyo jawaabteeda sida ay isugu aadayso. Midda koowaad waa aşağıdaki diyalogları sıralayalım. Wada sheekaysiga wax yar ka hor macalimadda iyo ardaygan Martin ku sheekaysanayeen dhinacooda midka ah. Adiga buugga markaad daabacataan iyo buugga haddaa haysataan waxaad samaynaysaan, waxaa laydin leeyahay aşağıdaki diyalogu sıralayalım. Wada sheekaysiga hoos ku yaala dialogue hoos ku yaala aan nambaro u yeelno. Conversationka sida uu u kala horeeyay 1, 2, 3. 1 waa lagu siiyey tusaale ahaan jumladii ugu horreysay. Adigoo luqadaada cashirkaaga soo muraajacaystay waa ka shaqayn kartaa, isku day. Adigay layli idiin tahay. Layliga labaad aşağıdaki ifadeleri eşleştirelim. Jumlooyinka hoos ku yaala aan isku aadaadino. Tusaalaha ugu horreeya waa lagu siiyey oo falaar baa la jiiday, mid ay ku habboon tahay la geeyey, kuwa kalena sidaa u yar. Midda saddexaad aşağıdaki diyalogu tamamlayalım. Wada sheekaysiga hoos ku yaala aan dhammaystirno. Aşağı hoos ayaa laga wadaa. Aşağıdaki markii la raaciyo jumladda hoos taalla, hoos ku taalla. Aşağıdaki diyalogu tamamlayalım. Dialogue hoos, wada sheekaysiga xiwaarkan hoos la sheekaystay meelihiisa bannaan buuxi. Marka waan rogaynaa boggan. Bogga 10aad yandaki ifadeleri resimlerle eşleştirelim. Yandaki ifadeleri resimlerle eşleştirelim. Jumlooyinka dhinacan ku yaala sawirka aan islahaysiino. Jumlooyinka geeskan ku yaala aan la haysiino sawirka. Waa aragtaan ilaa 12 xabo ayaa meeshan inoogu tala oo sawir, 12 jumladoodna way taalaa. Tusaale ahaan waxa aan sharaxayaa keliya mataqaanaa jumlooyinka jumlada aan macnaheeda idiin fasiray iyo waxaa islahaysiin doontaan insha Allah, iyo sawirka midda uu ku habboon yahay isleedahay. Midda ugu horreysa number 1 lama gelinayo, nambarka ay ku habboonta adaa gashan doono ee keliya waxaad fahantaa macnaha ay u taagan. Afiyad olsun baa sadarka ugu sarreeya. Afiyad olsun waa caafimaad ku cun. Cuntada aad cunayso ama biyaha aad cabaysa, labadaas waa lagu dhihi karaa caafimaad ku cab, caafimaad ku cun. İyi dersler, cashir wanaagsan. İyi dersler, cashir wanaagsan. Waxaa la isticmaalaa arday galaaska ka sii baxay macalinka iyo ardada markii uu leeyahay, iyo macalin xiisadiisa gambaleelku u dhacay oo sii baxaya asxaabtu ku leeyahay ardada. İyi dersler, cashir wanaagsan. Bol şanslar waa jaanis fiican baan idiin rajeynaa. Qof tartan sii galaya oo tartamaya ayaa la leeyahay. Bol şanslar, nasiib badan oo fiican baa kuu rajeynaya. Tebrikler, tebrikler waa congratulations, hambalyo markii aad leedahay. Qof hadiyad ku guulaystay, aroos galay, kaalin galay, qof canug u dhashay, waa la dhihi karaa. Çok yaşa, çok yaşa waxa ay isticmaalaan qofka markii uu hindhiso ayay waxay dhahaan in badan noolow. Çok yaşa, in badan noolow ayay u taagan tahay. Çok waa badan, yaşa waa noolow. Annaga dad muslimiin aan nahay, alxamdulilah iyo yarxamakallah ayaan
qofkaasaa dhaha alxamdulilah yarxamaka allah ayaan ugu jawaabnaa. Turkiga qofka hindisay ayay ku dhahaan joog yeeshaa. Lutfan waa please ayay u taagan tahay fadlan. Lutfan waa fadlan. Uzur dilerim iga raalli noqo. Uzur dilerim waa iga raalli noqo. İyi geceler waa habeen wanaagsan. Geçmiş olsun waxaa la isticmaalaa qof xanuunsan markii aad u timaado qof shil galay oo si uga badbaaday suddenly ayaa waxaa leedahay geçmiş olsun. Ilaah ha ku caafiyo ayay u taagan tahay. Bogsoonaashaan kuu rajaynaya. Mutlu yıllar happy new year ka markii uu dhalanaya ayaa la isdhahaa sanad wanaagsan. Sanadka cusub markii loo dabaaldegaya ayaa la dhahaa sanado badanoo xiiso leh. Sanad wanaagsan. Tamaam waa okay ayay u taagan tahay. İyi yolculuklar waa safar wanaagsan. İyi yolculuklar waa safar wanaagsan. Qaybta hoose lambarka 5aad. Shaashada inooma muuqato hadeer. Macnaha adinkaa ka soo shaqaynaya aniga jumladan idin fahansiiyey macnaheeda sawir walba wixii ku habboon. Masalan midda tamaamta ka muuqata idiin qashaya nambar 3 ay qaadanaysaa oo qofkaas suulka taagayo oo okay. Tamaam waa okay ayay u taagan tahay. Qofkaas suulka taagaya ayaa okay leh. Inta kale mid walba midda idinkula habboon tahay ayay ku aadinaysaa. Aşağıdakileri bakalım. Kuwa hoos ku yaala aan fiirino. Ne zaman ne söylüyoruz eşleştirelim. Goormee maxaana dhahnaa. Waa kuwii kor aan kusoo aragnay camal waa. Aşağıdakilere bakalım. Kuwa hoos ku yaala aan fiirino. Ne zaman ne söylüyoruz. Goormee what time and what we say camal. Waqti iyo jumlo ku habboon ayaa jirta. Meel aroosaa timid Allah u naxariista ma dhehaysid dabcan waxaa leedahay hambalyo mabruuk si la mid ah jumlo iyo meesheeda ku habboon. Sawirka waxaa inooga muuqda number 1 bayramanus kutlu olsun ciid wanaagsan. Ciidiina mid qurux badan ha idiin noqoto camal ayagu ugu taaganta laakiin anaga ciid wanaagsan baan leenahay. Bayramanus kutlu olsun baa leedahay. Nambarka 2 geçmiş olsun. Qof xanuunsanayo isbitaal ah ku soo booqatay Ilaah ha ku caafiyo marka hadiyad ugu keenayso ama uu jiran gurigiisa ku soo booqata ayaa leedahay caafimaad degdeg ah baan ku rajaynaya. Geçmiş olsun. Ilaahay intaan ha kaaga dhigo wixii xanuun ku soo maray. Geçmiş waa past ma kala qaadayno waa isku fasirayna waxaan leenahay Ilaah ha ku caafiyo. Nambarka 3aad iyi sanalar waa sanad cusuboo wanaagsan. Sanad wanaagsan. Nambarka 4aad anneler günü kutlu olsun anneciğim. Hooyo macaan maalinka hooyooyinka adduunka ayaan kuu hambalyeynaya camal ayay jumladan u taagantahay. Anneler günün kutlu olsun. Wiil ama gabara hooyadeeda u timid maalinka hooyooyinka adduunka loo dabaaldego hooyadeeda ayay ubax u keentay. Waa jumladii ay dhihi lahayd. Anneler waa maalinka hooyooyinka. Anneler waa hooyooyin. Günün kutlu olsun. Maalinka hooyooyinka ayaan ku dabaaldegayaa. Hooyoy macaanto camal ayay jumladaas u taagan. Anneciğim ugu dambaysa. Doğum günün kutlu olsun. Nice seneler. Happy birthday. Have a nice
Eh, have a nice year. Dhalashada qofka markii uu u dabaaldegaya dhalashadiisa hadiyad toorto loo keeno ama toortadii xafladii uu kugu casuumo ayaa la dhahaa afturka. Doğum günün kutlu olsun. Maalinkaaga